Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa soo saaray hadal u muuqda hanjabaad ku socda Soomaaliya iyo Masar oo dhawaan dhinaca saaray Itoobiya iyo Masar oo ay ka dhaxayso cadaawad salka ku haysa biyo xireenka webiga Niil ayaa xilligani waxay heshiis difaac wada saxiixdeen Soomaaliya iyadoo uu socdo qorshe ciidamada Masar lagu keenayo gudaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay inuusan dalkiisa ku duulin wadan kale balse haddii la isku dayo in la soo weeraro ay iska difaaci doonaan ayna taasi diyaar u yihiin mar walba. sidoo kale waxa uu dadkiisa ugu baaqay inay muujiyaan midnimo taasi oo muujinaysa inuu hogaaminayo dagaal xilli laga cabsi qabo Soomaaliya inay noqoto furin dagaal ee Masar iyo Itoobiya weligeed dal kale kuma duulin balse kuwa nagu soo duulay weligood guulna ma gaarin waxaana iska difaacayna kuwa halista ku ah qarannimadeenii ayuu yiri Abiy fariin cusub oo soo saaray. halkani ayaa waxa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya